السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وانا بداوديال دمانتين xiise gaar ah iyo barnaamijkeeni faa'iidooyinka isticmaalka cuntada oo toddobaadkiiba hal mar aad ka daawataan shaashada telefishinka qaranka Soomaaliland. Daawadayaal barnaamijkeeni toddobaadkan waxaanu ku soo qaadan doonaa khudaarta gaar ahaan geedka kaarooga. Waan filayaa daawadayaal in qaar badan oo idin kamid ah markay maqlaan magaca geedka kaarooga ay maskaxdooda ku soo dhacayso aragtiyo kala duwan ee ku macnaynayaan geedka. balse cilmi baaris aanu ku sameeynay isticmaalkiisa iyo sidoo kale faa'iidooyinka uu leeyahay aadamaha geedka kaarooga ayaanu daawadayaal barnaamijkeenan idinku soo gudbin doonaa inta ugu muhiimsan ee waqtigu saamaxo. xubnaha aynu ku soo qaadan doonno barnaamijkeenan waxaa ka mid ah faallada macnaha geedka kaarooga iyo noocyadiisa. sidoo kale daawadayaal waxaanu ku soo qaadan doonaa xaaladaha uu cimil ahaan geedka kaarooga ku bixi karo. waxa kale aynu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeenan faa'iidooyinka uu xagga caafimaadka u leeyahay isticmaalkiisa bulshada iyo fiitamiinada ku jira. qaabka loo isticmaalayo dabcan waa wax ku cusub baan filayaa daawadayaasha barnaamijkan markaan nidhaahdo noocee ama si qaabkee ayaa loo isticmaalaya geedka kaarooga waxuba xiiso badan oo iyadna inagu jirta barnaamijkeenan muddada la isticmaalayo iyo sidoo kale xubno aad u xiiso badan. balse daawadayaal ugu horeyn aynu u gundadegno qodobka ugu horeeya barnaamijkeena faallada macnaha geedka kaarooga. geedka kaarooga waxa uu ka mid yahay geedaha cuntadooda ku kaydsada ciidda hoosteeda oo loo yaqaano afka qalaad root crops. muuqaalka nololeed ee geedkan waxa uu u samaysan yahay qaabka dhululubada oo kale halka qaar kalena ay leeyihiin qaab dhexdoodu dhuuban tahay xagga sarena u buuran oo leh xidid qotoma tagroot. midab ahaan geedka dabacasuhu waxa uu leeyahay midab hurdi ah oo xiga midabka liinta waxaanu soo saaraa caleemo iyo muuqaalo doog ah oo ka sarreeya oogada dhulka. taariikhiyan waa mid ay aad u daaweyn tahay beerashadiisu waxaana markii ugu horeysay laga beeray wadanka Pakistan 2000 ilaa 3000 sano ka hor Nabi Ciise calayhi salaam. noocyada geedka kaarooga aad ayay u badan yihiin balse waxa ugu caansan noocyada laga helo qaaradda Yurub oo afka qalaad loo yaqaano European type, nooca laga helo qaaradda Aasiya oo loo yaqaano Asian type iyo sidoo kale nooca ka baxa dalkeena Somaliland oo ah nooca xagga sare u buuran dhexdana u dhuuban. geedka kaarooga waxaa la beeri karaa sanadkii 2 jeer oo kala ah xilliga guga iyo xilliga dayrta waxaana uu ka mid yahay dalagyada ku baxa sanad iyo in ka yar oo afka qalaad loo yaqaano perennial crops. waa tahay daawadayaal wada fahantay baan filayaa macnaha geedka kaarooga iyo faalladiisa intaba. haddaynu hore ugu sii socono barnaamijkeena iyo qodobka xiga xaaladaha uu cimil ahaan ku bixi kara geedka kaarooga dabcan waa mid isweydiin mudan marka la beeranayo geedka in la ogaado xaaladaha uu ku bixi karo. waa kan macallin Saciid Ismaaciil Ibraahim oo ka tirsan macallimiinta dugsiga sare Faarax Omar oo ka dhiga maadada beeraha ama agriculture-ka oo inoo sharaxaya arintaasi. xaaladihii sad afar baynu u kala qaadnaa xaaladood. afarta xaaladood waxa weeyaan qayb ciideen ka eegina qaybna waxaan ka eegina roobka qaybna waxaan ka eegina heer kulka. inta markaynu qaadano iyo jooga dhulka intee leeg dhulka ka sareeya ayuu ku bixi karaa. marka la doonayo in geedkii laga hadlo xaaladihiisa ugu muhiimsan waxa la sheegaa jooga dhulka intuu ka sareeyn karo ku bixi karo waa zero level. wixii badda ka sareeya heerka badda amba above sea level-ka. marka zero level ilaa iyo 2900 mitir dhul ah jooga badda ka sareeya laga soo bilaabo zero level-kii ayuu hadii goor ku baxaya. sababta taas aynu sheegnaa wax kale ma aha in dadku ay ka heer kulkiisa saxda ah ee la doonayo in looga faa'iideysto waxaynu isaguna ku sheegaynaa inuu yahay 16 degree heer kulka 16 degree ilaa 22 degree. laakiinse qabowga xad dhaafka ah geedkan uma adkaysan karo. qabowga xad dhaafka ah uma adkaysan karo sensitive ayuu ku yahay. hadduu sensitive ku yahay taasi waxa ay keenaysaa inuu geedkii khaayiso. geedkani had iyo goor midabkiisa saxda ah waa inuu u dhaxeeyo xagga kalarka midabkiisa saxda ah cimilada ku bixi karo xagga kalarka waa 10 degree ilaa 16 degree. laakiin low temperature-ka heer kulka hoose waxa uu ku sababaa geedkii in uu sameeyo midab daro liita. haddii uu intaa ka hobato wuxuu u baahan yahay roob ah 700 mm oo biyo ilaa iyo maxay toolay 1000 mm oo biyo beeriyeer sanadkii ayuu ku bixi karaa.
ciidda haddaynu u nimaadno ciidda uu ku bixi karaa waa ciid jilicsan qodmi og garanaysa muuqaalkeedu wanaagsan yahay biyihiina liqaysa ciiddaasi waa ciid fertile oo dihin nafaqadeedii leh cayayaan ka madax bannaan cudurradii ka madax bannaan waxyaaba badan markaa ka madax bannaanaysa sababta taa keenaysaana waa maxay waa in la daraasadeeyo ciiddii marka hore ciidda haddii la daraasadeeyana geedkii si wanaagsan ayuu u bixi karaa aynu soo qaadano qodobka xiga iyo barnaamijkeena faa'iidooyinka caafimaad iyo fitaminada ku jira isticmaalka geedka kaarooga dabcan faa'iidooyin badan ayuu u leeyahay geedka kaarooga aadamaha ama se dabacasuhu waa sida uu qofba u yaqaano hadday tahay xagga aragga caruurta uu u leeyahay faa'iido badan dumarka uurka leh dadka waaweyn iyo sidoo kale faa'iidooyin badan oo aada u tiro badan faa'iidooyinkaas waa kan doctor axmed maxamed gaas oo inoo sharaxaya daawasho wanaagsan حدثها ابتلال سلس وحلا ابتلال سلس وحويا وجهك بالعادمة وما كلية أرجو كلية مقال هنقضوا نون تبع منتظم مريسو أما حنقول حيدني هذا نقطة أما هنقطة كوا نفسك مريبة وحصل لنا أيوك غيب قطع وأكون غيب قطع دي أنا كورني هاي وحلا يلاحظوا كوريستا ilmaha markuu ku jiro canugu uurka hooyada ku jiro xubinta taranka lagu qayb qaataa ama isbeenska wax la yiraahdo taasoo la'aantiisu ay qofku keenayso ama indha la'aan ama caafimaad darraba waxa markaa hadii jeer lagula taliyo gabadhu markay u musho labada waxay la qabto wax weeyaan ilmaha oo markaa indha inta la feeyo dhibic lagu shubo nadiifisa indhaha oo antibiyootiga iyo habad iyo hooyadoo la siiyo 200 unit oo vitamin A waa mas gabadho loo umursaa way ogtahay vitamin A 200 unit waa la siiyaa hooyada si ilmuhu naaska uu qaato vitamin A da ama carotidka waxa la yiraahdaa ee arka makanaysaa iyo ilmaha koritaankiisa waxa kaloo sameeyaa ilmuhu marka uu shubmo hadii jeer waa la siiyaa inta loo qeybiyo la siiyaa سو حلا واحد لو شو كتير بكتيريا أما صنع وصحراء وصور عيونا شركة أوجل أما أبصر شكانو تلفت ذو كعاوية عنو صنع هذا مع وقف كهبين كي وحباتي في تمنية ديفيشن سمر كلا هذا هذا وكينا مركلا ولا جاو هرتجا تأنا هين متباشرة لو وده شو هذا لو وده شو مركينا تاهين ولا جاو هرتجا تذكروا إن السيو ده والله سيا وأنا فقط إلى أن تشرك أما أركا أما إبتدي السلسلة تشرك ودم. وتهاي هذا يوم هتسني هاي دكتوركو وفيليا كبوكتين فايدوين ككل دوان أنت أظهروا تقانين طبعا فايدوين ككليا إذا هروا أرق الدكتوركو إنه فايديني الله إنه قام فعيان لأن هاي سجنا على أجري حسنات بدن هكسيو ولدا وضيال وحين كوجد تنا برنامج كيني فايدوين كاستعمال كونتدا وأنا كسر قادم من تدبات كان جيت ككاروجا مثل تبع سها أنا هروج وصي سعنا قلب كحيجي برنامج كينن قدنا كسر هذا الني قبل سمعت كجيت كنوعية دي سفي تمني ذا كتير فايدوين ككلو بالشدة أولى هي إن قاب كي أيا لا استعمال كرا أما سقاب نوعية أيا جيت كان لا استعمال كرا طبعا تطفر بدن با وفيليني برنامج كان داونا يانا يالي qaabab kala duwan ayaanu isticmaal hadii tahay isagoo karsan hadii tahay hadaba daawadayaal waxa jirta in bulshadeenu ay u isticmaasho qaabab kala duwan geedkan tusaale ahaan iyagoo isagoo ay kariyeen ama maraq iyo wixii la mid ah ku dhex jira isagoo qayriinahay bulshada dadka qaar isticmaalaan hadaba qaabkee ayaa ugu muhiimsan in loo isticmaalo geedkan ma labadaba mise qaab gooni ayaa jira waa kan doctor gas oo markale inoo sharaxay arintaasi labada uu ku fiican yahay kaliya inuu nadiif yahay ayaa muhiim ah inuu nadiif yahay waa ma si wanaagsan loo maro ama la kariyo lakiinse intaba vitamin A di waxba kuma noqonayso waxana muhiimadu tahay marka laga reebo vitamin A du karoodka cuntiisaasi arga iyo jirka bil'aadamka dhismihiisa kisugu waxa kaloo sameeyaa ilmuhu marka uu shubmo هذه جروال السيا أنت الله طيب السيا سو حلا واحد لو شو كتير بكتيريا أما صنع وصحراء وصور عيونا شركة أوجل أما أبصر شكانو
تالفتنا وكعاوية عنو سينها واتحي داوديال waxaan filayaa inaad ka faa'iideysateen qaababka kala duwan ee loo isticmaalayo oo inoo sharaxaya Dr. Axmed Maxamed Gaas haatan inagoo iskugu soo noqon doona daawadayaal barnaamijkeenan aynu ku wada nasanno qadar xaysiisa واتحي هدينو intaas kaga soo laabano daawadayaal qadarka xayisiiska aynu jaleecna markan qodob ka xiga iyo barnaamijkeenan muddada la isticmaalayo kaarooga taban waa wax la yaab leh in waxaynu naqaanay dawooyinka ay leeyihiin muddo la isticmaalo iyo waqti gooniya balse daawadayaal waxa jirta in wax kasta oo la isticmaalayo ay leeyihiin qiyaas ama sados loo isticmaalo iyo muddo go'aan intaba haddaba khudraddeena gaar ahaan geedka kaarooga muddo inta leeg ayaa la isticmaalayaa mase jiraan haddii muddada loogu talagalay la dhaafiyo in waxyeello uu u geysto qofka isticmaalaya markaasi saynu arrintaas uga ogaano waa kan Dr. Axmed Maxamed Gaas oo arrintaasi inoo sharaxaya daawasho wanaagsan haddii wadiye jeer xanuunadan ku dhacay indhaha karta wiil inuu kamid yahay kala duudhaan waa la siiyaa vitamin A واركمل وحنا لسيا صدق مد بالسيا لو قوي ما أنت مد بالسينيا ترين مد بالسينيا ويك بعدنا مد بالسينيا ترين متواصلة يعني ها هدي لقى بديو وكنا مذحون بدل ممكن غير عادي هدي لقى بديو هدي لقى بديو أنت هدي لقى بديو هتقف استعماله لما تقول كنا حكمنا مذحون غير عادي قفوا سوق مارسنا أما قفوا لو بيرمي وبيدوا ما قررنا يصدقوا نفق دوب يدوا وسكوا مرسا صعد كار يأكلون مركا مسحرة أيوبيك بيبغون صوريا مركا وحريا صد أحمد وكليا السنة لو بقولوا يوم بتكليا ما تعمل السنة بريم دار السنة ككلوي تبعد بالسنة واتحي داوديال هذا يمكلوا مهتسين الدكتور أحمد محمد قاس إنه جو الرميي مدة الاستعمال يفايدون كي كلا دونا أنت بينه قصة والرمي هذا بقى isticmaalka geedka kaarooga ama dabacasaha ayaa daawadayaal ah mid aad u fara badan taasoo bulshadeenu qaabka u isticmaalaysan ay ka leeyihiin ujeedooyin kala duwan dadka qaar ayaa u isticmaala ama se u cuna geedka kaarooga xiiso ay xiiseynayaan kaliya cuntada uu ku dhex jiro halka qaar kalena ay isticmaalaan maqal ay maqleen inuu u fiican yahay ama se qayb lahaad uu ka qaato soo celinta aragga aadamaha haddaba aynu soo qaadano qaar ka mid ah bulshada isticmaasha geedka kaarooga oo ku dhaqan magaalada Hargeysa ugu horeyn waa kan Saban Ibrahim Saban oo ka tirsan ardayda dhigata dugsiga sare ee Faarax Omar oo ka warbixinaya ujeedada iyo faa'iidooyinka ugu jira isticmaalka geedka kaarooga si gaar ah isticmaala maadaama aanu ahay arday sanadkan ku jira daraasada afraad ee secondary-ga Soomaaliland oo dhan Soomaaliland gaar ahaan iskuulka Faarax Omar runtii geedkan aad baan u isticmaalaa waana muhiim geedaha sidan oo kale in la isticmaalo waayo maadaama protein ka heliso maadaama doonayso in wax akhriskaagu uu noqdo mid haaya sidoo kale Hooda Axmed Ismaaciil oo yana ka tirsan ardayda dugsiga sare ee Faarax Omar ayaa ka warbixinaysa ujeedada iyo faa'iidada uu xambaarsan yahay isticmaalka geedka kaarooga waxa uu diyaariyay gaas waxa uga qayb qaata ardayda iyo qofkaarkiisu haado mid walba wanaagsan oo si fiican u xarkan gaar ahaan maadaama anagu arday qoraalkayga akhriskayga badan aad bay iga caawiyay aadayu mahadsan yihiin Saban Ibrahim Saban iyo Hooda Axmed Ismaaciil oo ka tirsan dhalinyarada dhigata dugsiga sare ee Faarax Omar isla markaana ka warbixinayay ujeedada iyo faa'iidooyinka uu leeyahay isticmaalka geedka kaarooga واتحي داوديال waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeenan wasoo diyaarintii iyo soo jeedintii Muna Maxamuud Cabdi kamarada iyo editinka sidoo kale directorka engineer Maxamed Cabdilaahi Maadey waxaan sidoo kale halkan mahad balaaran uga soo jeedinay ka soo qayb galayaashii barnaamijka Dr. Axmed Maxamed Gaas iyo macallin Ismaaciil
macalin Saciid aan idhaahdo Ismaaciil Ibraahim sidoo kale ka soo qayb galayaashii barnaamijka dhinaca bulshada ka dhiibanayay aragtidooda ama se ujeedada uu isticmaalaan barnaamijkan waa Sabban Ibraahim Sabban iyo Hoodo Axmed Ismaaciil waxaan halkan daawada mahad ballaaran uga dirayaa macalin injineer Maxamed Cabdilaahi Maaday oo iga caawiyay igula darab garay isla markaana ay baray barnaamijkan diyaarintiisa waaxda tababarka telefishinka qaranka Soomaaliland sidoo kale waxaan halkan mahad ballaaran uga jeedinayaa dhammaan madaxda kala duwan ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta oo suurtagelisay qabsoomidda tababarkan dhammaantiin intaan barnaamijkan dhigiisa ku kulmayno daawadayaal waxaan idinku dhaafinaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala